booliiska Soomaaliya ayaa ridaha isugu dhuftay xarunta baaxadsiinta iyo bilicsiinta jirka ee Obesity Center oo gabdhaha qaarkood u bararisay faruuryaha iyo kubabka una biingadaysay wajiga. Waxay ku tiilay iskoyska dabka ee degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Waxaa la sheegay inay booliiska soo gaartay dacwadda nin loo kordhiyay xubinta taranka, balse waxyeelo caafimaad oo baahsan ay la soo diristay kolkii loo duray. Hawlgal qorshaysan oo ay fuliyeen booliiska gobolka Banaadir ayaa maanta albaabada loogu laabay goobta bilicsiinta jirka ee Obesity, waxaana xabsiga loo taxaabay macaamiishii dib u dayactirka jirka loo sameynayay iyo mas'uuliyiintii goobtan. Inkastoo aysan dawladdu weli war ka soo saarin, haddana waxaana soo gaartay inay jiraan wada hadallo labada dhinac u socda. Xaruntan oo muddo 1 sano ka badan furayd ayaa qaabili jirtay dadka cayilan ee doonaya inay miisaankooda dhimaan. Talooyin dhanka cuntada ayaana loo sameyn jiray. Mar kale ayay soo kordhisay qaybta naashnaashka jirka bini'aadamka oo lagu daweeyo finanka iyo dakharrada wajiga. Dabayaaqadii bishii Luulyo ee sanadkan waxay ku dhiiradeen inay soo kordhiyaan qaybta qurxinta jirka oo isugu jirta qalliimo iyo dheecaano la isku durayo, taasoo ay u arkeen mid ay lacago badan ka macaashi karaan. Waxayna sheegeen inay ku timid dalab dadweyne. Bilowgii horeba waxa ku soo xoomay haweenka oo doonaya in loo tayeeyo faruuryaha, camanka, kubabka, qoraadada iyo bowcadaha dambe. Sawirradii ugu horreeyay ee dadkii tijaabada lagu bilaabay ayaa la daabacay, markaasoo warbaahintu si weyn tooshka ugu ifisay waxtarka iyo waxyeelada goobtan. Ka hadalka wariyeyaashu laba dhinac ayay u saamaysay. Mar macmiil ayay ku heleen iyagoon xayeysiin lacag ku bixin, marna waxay ku soo jeediyeen hay'adaha dawladda oo jaangooya cidda suuqa ku sii jiraysa iyo cidda laga xirayo, maadaama laga doonayo inay kor joogteeyaan tayada badeecadaha iyo ku dhaqanka sharciga Islaamka. Dadka ayaa ku baraarugay ka soo muuqashada barta TikTok ee gabadha isku magacowday quruxdii oo qof ah. Waa Fartuun Jaamac oo bushmaheedu bararan yihiin oo sheegtay in loo qurxiyay afkeeda kadib goortii loo duray labadeeda dibnood. Waxaa xigay baahinta muuqaalay soo duubtay YouTuberada Maama Malyuun oo sheegtay in loo yeelay waji u dhalaalaya sida gabar 15 jir ah. Suxufiyiinta oo xiganaya dhakhaatiir xirfadlayaal ayaa ka digay halista caafimaad iyo tan bulsho ee ay keeni karaan qalliimada dib u qurxinta jirka. Markaasoo haweenka oo koox u socda ay ku sii qulqulayeen xaruntan oo laga furay faras magaalaha Muqdisho. Dad badan ayaa u arka in dibnaha la weynaysto ay qayb ka tahay quruxda qofka, halka kuwa kalena ay u arkaan foolxumo cagaha lagu doontay. Qalliimada macmalka ee qofku uu ku bedelayo xubnihiisa. Weynaanshaha dibnaha ayaa muddooyinkii dambe aad ugu soo badatay dunida oo dhan, iyadoo cilmi baaris lagu ogaaday inay aad ugu badan yihiin dhalinyaradu. Mid ka mid ah gabdhaha dibnaha loo weyneeyay oo la hadashay warbaahinta Shabeelle ayaa tiri, "Weligay waxaan jeclaa inaan weynaysto faruuryahayga. Maanta waan ku faraxsanahay in faruuryaha la ii weyneeyay. Waxaan dareemayaa qurux aanan horay u lahayn. Markii hore faruuryo yaryar ayaan qabay, hadda kuwa qurux badan ayaan helay." Filsan oo ku nool Muqdisho ayaa 2 maalmood ka hor qalliin looga sameeyay faruuryaheeda, waana loo weyneeyay sida sawirada ka muuqata. Diinta Islaamku ma ogola in wax laga bedelo abuurista Ilaahay haddii aysan jirin baahi daruuri ah, waxaana culimo badan ay ku fadwoodeen in laga fogaado qalliimada caagga ee dib loogu farsameynayo muuqa bini'aadamka caafimaadka qaba. Ragga Soomaaliyeed oo cabsi ka qabay in dayactirka jirku uu saameyn ku yeesho qoysaskooda ayaa aad u soo dhaweeyay xirista goobtan, waxayna sheegeen inay soo afjarayso walwalkii ay ka qabeen mustaqbalkooda. Haweenka qaarkood oo hamuun u qaba in loo qurxiyo meelaha ilqabad kale ee ay ku soo jiidan karaan gayaankooda ayaa aad uga carooday go'aanka dawladda Soomaaliya ay albaabada isugu dhufatay xaruntan. Inkastoo dadka ka faa'iideystay ay qayb ka yihiin ragga Soomaaliyeed, dhakhaatiirta ayaa sheegay in weynaysiinta dibnaha laga maro dhib ay ugu yartahay dhiig ka imaanaya meelaha duritaanka, taasoo ay weheliso in muddo 2 toddobaad qofku uu la daalaadhaco barar iyo nabro qandho wata. Qofka duritaanka dibnaha qaata ayaana 6 biloodba 2 jeer u baahanaya duritaanka dibnaha markii ay isbedelaan.